salaamu calaykum salaamu calaykum markas waa soo galaa cunaha ad moodaa maaragtay cunahan clear ka dhigayaa salaamu calaykum caruurey dadweynow gidigiin salaamu calaykum baan leeyahay maalin wanaagsan habeen wanaagsan subax wanaagsan meel kastoo joogtaan waxaan idiin sameynaya wax maanta akhribugi intii yarada ka hadhay oo adugu xoogay inta haddii waqtigu inoo saamaxo wuxuu u badan yihiin xooga yaryahay buugu markaa insha allah xoogay baan akhriyayaa buugga si caadada anigay ahayd kadib waxaan raacsiinayaa in yar oo sheeka caruurkii iyo in yar oo xujo yara ayaan idiin reebayaa insha allah bismillaahi kariim marka waxaan rajeynayaa inaad ka heshaan dee waxaan leeyahay daawasho wanaagsan bismillah okay waa buuggeeni caadiga ahaa ayaanu sii wadnay it's okay to be different we all different again some kids have a blonde hair and light color skin caruurta waxay ka hadlayaan caruurta cadaanka dhaleen caruurta qaar waxay leeyihiin timo cadaana oo cadaan oo adu cadaana oo aan waxna ciraan ahayn laakiin cadaana blondina iyo maxaan dhahdayay skinkoodi oo maxaan cad oo cas oo casana waa caruurtan cadaanka weeyaan some kids have dark hair and dark color caruurta qaar waxay leeyihiin bay leeyihiin midab madow iyo midab timahooduna madow yahay marka waxay ka hadlayaan dadku bini-aadanka siday kala yihiin bini-aadanku dee dhowr midab baynu ayay leeyihiin adduunka markaan basaawirtaan waxaa weeye waxaan leenahay midab maariina waxaan leenahay midab madow waxaan leenahay midab casaana waxaan leenahay midab si casaan yaraad muddo dhiigkeeda yaryahay oo kale dadku qofba sibuu egyahay qof baa dheer qof baa gaaban qof baa indha waaweyn qof baa indha yaryar qof baa san yaroo buuran leh qof baa san dhuuban leh qof baa san yar leh qof baa af weyn qof baa af yar yacni waxaa laga hadlayaa adduunka oo dhan aadamaha ku nool qofba sibuu egyahay ayaa laga hadlayaa marka macnuhu waa halkaa marka waan sii akhriyayaa beshka labaad baan usii gudbay kale some kids are big and a small sorry some kids are big and some kids are small warun ha waxay yidhaahdeen caruurta qaar baa waaweyn waa caruurta hilib kale maaragtay waaweyn qaarna qaarna way yaryar yihiin oo nis waxaad moodayna yaryari waa inaga waxay yidhahdaan nis oo kale nidhaahnaa on malin I think waan filayaa I think waxaynu nis wax qofka niska yar le weeyaan baynu dhahay inagu qofka niska yar oo qofka yaryare maxaan dhahdaa ama gaaban ee dhuuban ee haddana qofka weyna anigu markaan dhalinyarada ahayn anigiyo maxaan dhalinyarada iyo dadkii teenagerka sida soo kornay waxay yidhaahaa waxaan uga jirnay nin yaro weyn qofka gaaban ee niska yar nin yaro weyn baynu uga jirnay some kids are short some kids are tall waa run caruurta qaar baa gaagaaban oo dherarkoodu aan xoog orday u soconaynin qaar baa dhaadheer oo dherarkoodu maxaan dhahdaa si korayaan oo markiiba si qof rasu ilaahay u abuuray waa kuwaana waa ka hadlayaan maaragta some kids aniga xubna ota waa tall and big maaragta that is it waan sii wadayaa we are all different again some kids are great at the science and math other kids chose to hold another part caruurta qaar waxaa laga hadlaya iminka qaybta waxbarashada caruurta qaar waxay ku fiican yihiin maadooyinka qaar inagu maadaynu dhahan soomaalida maadooyinka qaar waxa weeye qofku ku jecel yahay
wuxuu jecel yahay xisaabta, qof wuxuu jecel yahay science-ka, qof wuxuu jecel yahay inuu waxyaabo kale u barto, qofba waasi. Marka dadku way kala duwan yihiin. Perhaps play sport or music. They think some kids play in instrument while the other can sing. Okay. qaar waxay musiga ay bartaan, qaar waxay turumbaha dheer bay jecel inay ku ciyaaraan, qaar waxay jecel yihiin gitaarka, qaarna waxay jecel yihiin iyagoo tumaya piyaanaha inay heesaan. oo qofba siduu yahay, qofba wuxuu jecel yahay weeyaan. Again, we are all different. Some kids wearing glasses and help them to see. Some kids talk with accents and different from me. waxa weeye caruurta qaar waxay xidhan yihiin caruurta qaar waxay xidhan yihiin muraayado ay wax ku arkaan. qaar markay hadlayaan luuqadda lahjaday ku hadlayaan, iyagoo ku hadlaya matala imka anigoo kale markaan English ku hadlayo, dee anigu Englishkayga perfect maaha, laakiin waxaan dhahaa waxa ku jirta lahjadii Soomaaliga ku dhex jirta aniga Englishkayga markaan hadlayo ama wax akhriyayo ama ku hadlayo. waa saas oo kale accent bay dhahaan, accent. marka waa kala duwan qofka. iminka matalan inaga oo kale marka qof inoogu yimaado wadankii oo af Soomaali ku hadlayo, si kale ugu hadlaya, laakiin waa af Soomaali ugu hadlaya, laakiin si kale oo lahjadiisi ku lamaan tahay ay ku hadlaya. Some kids get right and cool looking chair. They take their ramp while other the kids stare. Okay. waxa laga hadlaya iminka, waxa maantii hore wiigii hore kasoo hadlay caruurta curyaaminta disableka ayaa laga hadlayaa. waxay ilmaha qaar waxay korsan yihiin gaari curyaankii wheelchairka, qaarna caadi bay iska soconaya, salaankii bay ka degaya, waaba kuwaaba. soo ma aragta? You can see? You see that? Yeah. marka we are all different. Again, some kids have a glassy, crunchy wheelchair slide, but it's never okay to make fun of this thing. waa sax, waa run. qaar waxaa laga hadlayaa weli haddana kala duwanaanshihii baa laga hadlaya. caruurta qaar waxay saaran yihiin wheelchair, qaar muraayado waaweyn bay xidhan yihiin oo aragtidooda waa daciifo, laakiin muraayado waaweyn oo wax si fiican oo clear wax u arkaan. qaar baa karaashiysito oo jajaban oo lugtii ka jabtay, qaar baa gacantii ka duuban tahay. marka kuwaas oo miidhan wax lagu kaftamo ama dadka lagu caayo ma aha. ma fahantay? marka macnuhu waxa weeye buuggan wuxuu kasii hadlayaa inaan dadku aanay isku caayin siduu qof walba ilaahay abuuray. waayo qofka curyaankii de ilaah baa san ku abuuray. qofna inuu curyaan noqdo ma jecla, laakiin kan soconaya ordaya ee caafimaadka qabaa ayaa lagu eegaya. marka waa inaynu isku ixtiraamno caruuray, especially caruurtan ka hadlaya iminka. caruurta waa inaad ixtiraamtaan qof walba siduu abuuran yahay ilaahay u abuuray. You have to respect the other kid who is different than you. Okay? Respect. Full respect baa laga rabaa. waxaan rabay marka intaa markaa ka baxo, waxaan rabay inaan sheeko caruureed yaryar idinku yara daro. waxaa jirta sheeko anigu markaan ciyaalka ahaa maqli jiro noogu sheekin jiray. nin la yidhaahdo wiilwaal wuxuu ahaa mar waxaa la yidhahda wuxuu ahaa king. waxay ahayd many years bay ahayd. wiilwaal wuxuu ahaa nin meel haysta oo intelligent, very intelligent buu ahaa. wuxuu samayn jiray dadku maxaan ahdaa challenge ku samayn jiray. challenge dadku xujayn jiray, xujay noqonaysaa Soomaalidu challenge oo kale. marka xujadaasi waxay ahayd
wuxuu sameeyey maalin, wuxuu sameeyey village-ka maalin tuuladay degay meeshii la deganaa markaa waqtigaa, ama waxay tuulo yar ama waxay meel miya adugu meelahaas bay ahayd. dadkii oo dhan buu yeedhay, hool wuxuu yeedhay maxaan dhahdaa, wuxuu u wada yeedhay dadkii tuulada deganaa oo dhan meesha deganaa. wuxuu yidhi waxaan rabaa, eeg hadda caruurtan doonaya af soomaaliga rabaa inay bartaan ay ku nool adduunyada kale aan soomaali ahayn, soomaali maxaan dhahdaa afrika ahayn, somaliland iyo soomaaliya kuwa jooga way fahmayaan sheekadan, way garanayaan, laakiin waxa weeye sheekadan waxay ku socotaa caruurta joogta yurub, maraykanka, australia, hadda doonan carabaha, kuwaasaan rabaa inay sheekada ay dhegeystaan bulshada. ninkani wuxuu ugu yeedhay dadkii oo dhan buu yeedhay, waxaan rabaa buu yidhi cadka walaaleeya ragga, cadka walaaleeya ragga. okay, marka cadka waa idiin fududaynaya. he say I want the thing, the male bala nimanka somaa ragga male, they can be to be brother or friend, the thing making them coming to be friend or brother. waa xujo, waa challenge, big challenge wey. okay, cadka walaaleeya ragga. then waxaa dhacday dadkii baan way yaabeen, markaa nin walba wuxuu orday, dee maxaan dhahaa smart ma ahayn intooda badan nimanka meesha marayay, smart ma ahayn completely, waxay lost, waxay fahamsanayn maba jirin. isagu wuxuu ahaa very intelligent, very smart and challenge the people all the time. ma fahantay? wuxuu ku yidhi marka way ordeen, marka reer odaybaa wuxuu sameeyey gurigiisii u tegey. he told his daughter, inantiisiibu wuxuu ku yidhi aabo maanta wiilwaal waxaasuu soo yidhi, wuxuu yidhi cadka walaaleeya ragga noke, marka waxaa samaysa arigeeni intaad dhex geshid neefka ugu weyn ee baruurta badan leh soo qaad. his daughter buu ku yidhi, inantiisii dhalay. inantiisii way oroday, waxay samaysay neefkii ugu caatada yaraa ee ugu yaryaraaye dee tabacaanka taagnaa bay soo qaatay, way qashay. intay qashay bay waxay soo saartay hunguri baa la yidhaahdaa waxa dhugunta dheer, eeg hilibkii kale may soo qaaday. hunguriga intay soo jartay bay u keentay aabaheed, waxay ku tiri ugi kan ugi. aabaheed baa maxaa ugu dhaxay, namiyad waalan tahay, na maxaa kugu dhacin kaari kugu dhacday, maxaad meesha das aniga lagu kashifo wilwaalna meesha igu dilo. maya makasitee maya, adigu qaad hilibkan hunguriga, adigu qaad oo gee. markaad u geysid markaa eeg wuxuu idhaahdo ma aaba iga da, maya adigu qaad ku yidhi, ay ku tiban ka wada, adigu qaad bay ku tiban. okay, odaygii hore dilacsanoo baqayo, embarrassing dareemayo, humility dareemayo, waxaasoo dhan oo xishoonayo oo qajirsan baa hilibkii, dadkii kale waxay keeneen lug, mid wuxuu keenay garab, mid hilibku ku fiican yahay ku qurux badan yahay buu meeshii la keenay. odaygiioo isdhuumanaya oo maxaa dhahdayey isbarbarinayaba hilibkii oo maxaa hungurigii oo blade wixii lagu soo riday buu halkan dhigay dhakub, wuu isqarinayay wax maxaa dhahdaa wax isla yaan lagu arkay. markaa wiilwaal baa yimi meesha, hilibkii oo dhan buu arkay, wuxuu yidhi kan yaa keenay hilibkii wuxuu hungurigii u arkay, yaa keenay hilibkan. qof walba markaasuu yidhi maya anigu ma keenin, anigu kanaan keenay. marka odaygii baa soo barbariyey, wuxuu yidhi anaa keenay, isagoo xishoonay, anaa keenay. deetana markaasuu yidhi soo baxo, markaasuu yidhi sidaad ku garatay hilibka, yaa kusoo dhiibay. mid inkaar qabto aan dhalayo inanaan dhalo inkaar qabtaba waxaan ii keentay igu tiri qaad. markaasuu yidhi iyadaa fahantay hadalka, she's a very smart lady, waa ina yaro smart ah,
hunguriga ayaa ragga walaaleeya. this one baa ragga walaaleeya yidhaahda, because waxa weeye raggu bini-aadanka ragga weliba waxay sameynayaan haddaad lacag haysatid walaalay noqonayaan. if the other one has money they come in the best friend and brother kaagi noqonaya. haddaad haysana kick you out. marka sheekada waa taa. waxaan rabaa xujo kale in idiin sheego. anaa imika challenges ku sameynaya. waxaad sheegtaan caruurtaan rabaa inay gartaan bal waalidku haw sheegaan laakiin haw sheegina jawaabta iyagu maskaxdooda ka keenaan. qof baa webi ka tallaabay, haye waa 3 qof. qof wuu qoyey, biyihiibuu ku qoyey, haye qofna muu qoyin waanuse ka tallaaba. waa 2 qof weeyaan. astaqfiro 2 biyihiibuu qof ka tallaabay, qof wuu qoyey already wuu qoyey biyihii baa qoyey, qofna biyihii wuu ka tallaabay manu qoyin. waxaan rabaa taas inaa maxaana iga soo jawaabtaan. dhinaca commentkan waan idiin furayaa, soo qora maxaan dhahdaye wixii jawaaba ka heshaan. dee maca salaama, khayr baan idiin rajeynayaa. dee insha allah bismillaahi kariim waynayo waqtiyada dambe daawasho wanaagsan. bye bye.